ummadda Soomaaliyeed in muuqayga garanaysa in magacayga garanaysa anu wadanka waan soo halgamay sabankii ciidamada Soomaaliyeed xajaladiisa beebeegada ninka ku xidhnaayo baaraay abwaan baarleex baaraay waan soo halgamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ka codsanayaa inay taakureeyaan dhakhtar geeyaan caawiyaan maanta waa xaruursanaay wax kale ma doonayo guriga ma rabo baabuur ma rabo wadnaha in la yaqalo in dhakhtar tukri la geeyo intaas Soomaalida ka codsanaya waabaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ee farakutiriska ah ee ku xil dheer dhanka suugaanta maalin ka hor ayaa liigu soo wargeliyay in abwaan Baarleex uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo uu doonayay in uu kaga sii gudbo dhanka dalka Turkiga oo loogu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay ku wanaagsanaan karto waxaan ku booqday hotel uu ka degan yahay magaalada Muqdisho nasiib wanaag qolkiisa kali kuma uusan ahayn oo waxa iga sii horeeyay tiro wariyaala oo si booqasho ah ula joogay halkan waxa aad ugu dhibaataysan oo xaalad caafimaad oo adag runtii ku jira abwaankeeni waa Cabdullaahi Xirsi Baarleex ninkani waa tiro kooban oo aynu haysano oo ah dadka golof ka fuulka ama dadka aan waqti gelinin inay hal abuurnimo ama fikrad ay si sameeyaan isla markaasi ay ku soo dhalato hore ka sheega runtii maanta uu gacanteena u baahan yahay maanta wuxuu u baahan yahay inaynu garab istaagno oo nagaano oo annaga oo shakhsiyadaada iyo abwaanka tahay noocaaga aan mahad celinna garabkayga waa abwaanka oo bilooyinkii dambaba xanuunsanayay dhaqaatiirtii la tacaalaysay xaaladiisa caafimaad waxay u sheegeen oo ay ku wargeliyeen in gudaha dalka xaaladiisa caafimaad aanan waxba looga qaban karin isla markaasina uu u baahan yahay in loo qaado caafimaad dalka dibadiisa si qaliin loogu sameeyo wadnaha oo uu ka xanuunsanayo halka waxaan joognaa inaan ku soo dhaweeyno abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex oo ah abwaaninta ummadda Soomaaliyeed runtii muddo ayuu ku xanuunsanaa gobolada waqooyi magaalada Hargeysa halkan waxaan u keenay insha Allah in xaaladiisa caafimaad aan la socono oo aan dhaqaatiir geeyno haddii dalka wax lagu qabo wayna sii gudbino dhaqaatiirta dibadda ah ee caalamiga abwaanka uu ku dhawaad muddo 3 bilood jooga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu sheegay in ay keeneen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu hadda ka cabanayo isla markaasina uu sheegay in ay ka haystaan baasaboorkiisii iyo kii gabadhiisa oo ay kaga qaadeen in ay ugu soo dhufanayaan fiisa dalka Turkiga abwaanka madaxda ugu sareysa ee dalka imika waxa uu ka codsanayaa in xaaladiisa caafimaad ay naxariis la ku soo eegaan walaalayaal madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha ninka Xasan Cali Khayre ninka gudoomiyaha baarlamaanka ee maalinka dhaweyd gaashaandhigga ka soo wareegay war ilaahay haddaad taqaaniin ood madax Soomaaliyeed tihiin oo dad qaran tihiin war ninka wasiir ku xigeenka xabsiga ay geliyay war ninka magaciin iyo magacaygaba ku ciyaaray war ninka baasaboorradayda haysta haddaad dawlad jirta tihiin oo qarana Soomaaliland maanta baasaboorradayda laygama haysteen isoo celiya waan iska tagayaa waxba dhakhtar ay geynina caruurtaydii baan aadayaa waan ku dhex dhimanayaa ilaahay baan aaminayaa baasaboorradaydii cirka iyo dhulka gurmada intaad qaadaan ninka awoodda sheegtay iga soo celiya ninka wasiir ku-xigeenka ah waxaa la yidhaahdaa cilmi cumar caynsanaa la yidhaah ninka kaleetana waxaa la yidhaahdaa agaasimaha ii sheegtay Mustafa Sultaan baa la yidhaah caawa haddii la ii keeno waagu igu baryi maayo waan iska tegayaa sahay ma haysto baabuur diyaarad ma haysto baabuur meel loo raaca ma aqaan dawladnima hadday jirta baasaboorradayda la ii keeno addoon ilaahay ahay oo la yaqaano meelun baa ilaahay geyn baasaboorradaydii baasaboorkaygii kii gabadhaydii halla ii keeno waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay ii wada gurmadaan oo waxay qabtaan Muqdisho oo uu jooga hadda 2 bilood iyo xoogaa xanuun haya dartii halkan oo u yimid asigoo doonayay in dalka Turkiga loo sii qaado si xaaladiisa caafimaad ay u caafimaado oo qaliin looga sameeyo wadnaha miyuu filanayay in magaalada Muqdisho oo ah caasimadii Soomaaliya asigoo xanuunsan muddo intaan la eg in uu joogo u dhoof baan islahaayo mar dhaqaale ka raadiyo marna dhiigga ka raadiyo marna waa dhaladkiyo
marna waa dhumucdiio marna waa dhexdhexaado waa soomaali dhegteedo u dhoof baan islahaayo ha ku sii yar dhoweeyeen tugrida una ha dhex dhigeen dibkadeed wadnahaaga dhibaato iyo dhambalkii hala jeexo hala gooyo dhibkii caafimaad ha dhammeeyo ogadaada dhammaan midaasaan dhawanaye waaba sii dhega beeni cimrigay kuma dhaaranba waa dhibaato adduun muqdisho iyo waxaa waa la dhaafay marka waxaa weeye xaaladda waxay u eg tahay nin walowba faraskaaga ayaan laga badinin haddaba muxuu ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa abwaan baarleex oo sheegay in imaanshihiisa muqdisho uu dhagihiisii ku waayay anigu ummadda soomaaliyeed ee walaaladaya meel kastoo ay joogto ciddii waxay taraysa oo wadnahaygaa dhakhtar kala quusanaysa waan u baanahay awal wadnahaybayd arrintu hadda dhagihii baaba sama dhagihii yaaba sama dhagaha inay zam ku dhahaan maxaa keenay ya dhagaha inay zam ku dhahaan maxaa keenay fikir habeen oo dhan saasaan u fadhiyaa ma seexdo ilaahay baa igu og waxay yimaado waayi inaan waashaan ku dhawaaday madaxiisaan u soo jeeday ee saa u ahaa 2 bilood sam unbu habeen fadlan walaal haddii aad doonayso inaad la xiriirto oo aad caawiso abwaan cabdulaahi xirsi baarleex kala xiriir telefoon nambarada uu afkiisa ka sheeganayo waxaa weeye telesom baa wataa lambarka telesom waxaa weeye 06 3 4 9 7 2 2 midka kalena waa samtayl waxaa weeye 297 2 cabdulaahi xirsi baarleex waa abwaan ku caana samaynta dhaantooyinka abaaloox lagu dhigaa aqoon baa lagu socdaa ilays baa meel ka baxay iftiinii muuqda iyo iridahaan kaarka hortii kale waxaan lahaa cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho telefishinka Somali Cable Soomaali weyn waxaan ka codsanayaa meeshay doonta ha joogto raas gambooni iyo raas xaseen ninka af Soomaaliga ku hadlaya ee walaalkaya inuu maanta wadnahayga wax igala qabto oo isoo caawiyo xamarna waa iskaga tegayaa waa ku bajarsanahay waa idin jeedaan waa idin salaamayaa walaalada Soomaaliyeed